madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waalidiinta raaligelin siiyay kadib markii manhajka cusub ee waxbarashada ay dadka qaar ku wareereen qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo qaada dhigaya Hashim Maxamuud oo Barar madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dawladdu ay halkeedii ka sii wadi doonto in aysan dib uga noqonaynin nidaamka lagu xalinayo manhajka cusub ee isbuucii aynu soo dhaafnay lagu dhawaaqay waalidiinta ayaa sheegay in ay aqbaleen raaligelinta madaxweynaha balse ay weli ku wareersan yihiin dhaqangelinta manhajka iskuulada iyagoo sidoo kale sheegay in ay kalsoonidoodii ay hoos u dhacday waxa ay waalidiintu ku dhaliileen dawladda in ay tahay mid wax yar ka qabatay sidii sare loogu qaadi lahaa kalsoonida waalidiinta ay ku qabeen diyaar ahaanshaha laga doonayay dawladda dalka in ay mar walba ay ahaato mid u diyaarsan adeega caruurta ay ku doonayaan balse aysan gadaal ka soo baraarugin xilli uu khalad ku yimid nidaamka waxbarashada ardayda. Hashim Maxamuud, wararka Cable TV, Garissa.